السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دور wanaagsan halkani waa qardho. waxaan walaalayaal maanta soo booqday oon la joogaa walaasheen Nasra Xasan Ibraahim oo ah gabadhaas aadka udka da'da yar oo masiibadii ka dhacday magaalada qardho ay ku weyday saddexdeedii carruurtaha. waxaynu nahay ummad islaam, waxaa ilaahay ina faray inaynu isu naxariisanno, isu damqanno, hoos isu fiirino. waa dareemi kartaan xanuunka ay leedahay marka laga hadlayo ubad ilaahay ku siiyey oo haddana kaala maqnay. hal cunug ayaynaan awoodin in aynu ku qanacno oo qalbideen iyo niyadeennu ay ku samaato. marka 3 ilmaan adigoo weliba qof aad iyo aad u dayana ay ku dhaafaan, waa dareemi kartaan xanuunkay leedahay. Nasra waxay lahayd 3 carruur ah, 3 gabdhood bay lahayd. sida laynoo sheegay, markii ay damacday in ay biyihii faraha badnaa ee guriga soo gelayay ay albaabkii damacday inay ka xirto, ayay intay daaqadaha ka soo galeen 3deeda carruur ah iyadoo arkaysa la bixin. qoftaas aadka u da'daya oo aad u jeedaan weye muuqaalkeedii nolosheedu siday u egyihiin. waxaa laga yaabaa beri ka hor inay sidaan ka qurux badnayd, laakiin maanta xaaladada siday tahay waad u jeedaan. abaayo Nasro, waxaan ku leeyahay waa ku soo booqday, waa kula xanuunsanayaa, waa dareemayaa meesha xaaladaadu marayso. aabbaanahay, ubad baan dhalay. ilaahay waxaan kaaga baryayaa inuu samir iyo iimaan kaa siiyo. ilaahay waxaan kaaga rajaynayaa inuu bedel khayr qaba kuugu bedelo. waad yar tahay, niyaddu yay kaa dhiman, ha calool xumaan. waa kula jirnaa, waa kula joogaynaa, waa kaa warhaynaynaa. qof walba oo islaam ah oo halkaa naga daawaray, waxaan ilaahay hortiisa idinku weydiinaynaa inaad walaasheen ubadkeed uma soo celin karno aad u ducaysaan in ilaahay niyadda u qaboojiyo. wax allaalayo waxaad heli kartaan aad u soo dirtaan. telefoonkeedu waa 25 781 418. telefoon golisay haysataa, qarnay ku sugan tahay. xawaaladaha qarda oo dhan waxbaa loogu soo diri karaa. magaceeda xawaalada looga yeerayaa. magaceeda keliya fadlan ha lagu soo qoro lacagta. magaceeda ha lagu soo qoro. magaceedu waa Nasro Xasan Ibraahim, qarnay joogtaa. qof walbo islaam wax sadaqaysanaya gabadhaas xawaaladaha waxa ugu soo diro. gabadhaas aynu garab istaagno. gabadhaas haddaynaan wax kala tari karin nolosheenna aynu dib u dhisno, aan isku dayno inaynu garab istaagno oo wax ay ku qanacdo inay ehel leedahay, walaal leedahay, asxaab leedahay, dad islaama leedahay aynu u qaban. walaasheen Nasro, xaaladaada ka waran. hadda waa fiican, laakiin cawdkii waa iska jirtaa. waa fiicanahay, ilaah mahad iskale. waxaa ka warantaa walal macaan, adigoo arkaya carruurta ku dhaafeen miya? waa u jeeda carruurtaada markay biyo qaadanayeen. albaabka markii hore way xidhnaayeen, walaal albaabka way xidhnaa. biyarkii waan seexsaday, kadibna ilmeel baanaa isu dhiganayay. biyo walaalay soo galay, waan dareemay oo anigii qooyo, waan kacay. carruurtii baan kulli waxa wada dafay. guri 3 mitir marka lagu gaaro buu ciyaalkii la dabaashay. haddaan la dabaashayna guryo markay isku duween biyihi albaabka naga soo galeen, albaabka lagu soo tuuray. kadib baan biyihii wada raacnay. ciyaalkiina anaa u jeeda oo anigana baddii u dareemay. walaal waxay sheegtay ilaahay baa naiga badbaadiyay, igana tagay. ilaahay baa buu mahad iskala daanana ka helay. wax kasta qoraal ku dhacaa. walaalayaal, waxaan idinka dalbanayaa inaynu walaasheed u dadaalno, inaynu walaasheed u soo jawaabno sida ugu dhaqsaa badan, inaynu walaasheed garab istaagno.
soomaaliya waxaa laydinku yaqaan dad rixina dad islaamba dad wanaagsan waxa maanta oo rabadaan ah gabadhaa yartaa ku dhacay qof walba oo waxa weeyaan cibro inoo tahay wadda inoo tahay kudayashaa laynaga rabaa inaynu la xanuunsanaa laynaga rabaa inaynu la xanuunsanaa laynaga rabaa ubadkeedu ma soceli karno nafteenna inaan meel ku ogeyn ilaaha subxaana watacaala baynu baryaynaa waxaa idinka rajaynayaa gabadhaasi waxay ku qanacday inay idinka hesho haddaad soomaali tihiin haddaad soomaaliya joogtid numberku waa local cumar numberkiidii walaal meel ku qoraya numberku waa local haddaad qardha iyo aageeda joogtid numberku waxa weeye 25 eber 781 4 25290 781 4818 haddaad soomaaliya joogtid walaalayaal nambarkaas ayaad sahalkeeda lacag ugu soo diri kartaan haddaa adduunka dacaladiisa joogtaan waxaad idinka dalbayaa inaa xawaalada kugu dhow aan gabadhaa yartaa u tagtaan aan gabadhaa yartaa soo garab istaagtaan haddaa community isugu day kartaan waddan iyo degmo iyo iyo deegaan walaalayaal waa idin baryayaa ilaahay hortiisaan wax idinku weydiisanaynaa gabadhaa yartaayo walaasheena oo murugada iyo tiraanyada intaas ay gaarsiisay oo maanta halkaa fadhida gurigaa wax dhexyaalla ma jira aan fadhino waad ujeedaa siduu yahay wax dhexyaa hal joodari baa dhexyaa dharna intaasay ka wadataa qof walbo islaama qof walba oo rixina qof walba oo ehela qof walba oo soomaaliya waxaan ilaahay hortiisa idinku weydiisanaynaa inaad qiimaysaan xaaladda walaasheen nasro ku sugantaa maanta nasre xasan ibraahim weye magaceedu dadkii uu lifekii hore dhaafay ama markii hore telefoonka sheegayay telefoonkeedu waa 2529 eber 781 4 magaceedaa ku qoran nasre xasan ibraahim ayaa ku qoran dadka adduunka dacaladiisa joogaan xawaaladaha ayaa rajaynana inay wax kusoo marin doonaan dadka waddan gudihiisa joogaana nambarkaas sahalka ayaa rajaynana inay wax kusoo diri doonaan nambarkoo rasmiya waa idinla wadaagi doonaa via facebook haddii alla karaami noqdo waxaan idinka dalbayaa inaynu garabkeeda istaagno inay dareento inay islaam tahay inay soomaali tahay inay dad macaan ka dhalatay dad dhaqan wanaagsan ka dhalatay maanta sadaqadaynu la baxna iyadoo ramadaana meeshayna gaarsiin karta waad garan kartaa waxaan anigu go-aansaday maanta wax kale ma tari karo afrikaan la joogaa naftaydana meel kuma ogi laakiin waxaan go-aansaday inaan intaan u imaado tuso xanuunka ay dareemayso aabbaarahay gabdhaha ka tegay ka dhintay aniga curadayda waa gabar gabadh qiimahay leeda waa garan kartaa ilaah subxaana watacaala wuxuu yidhi qofka uu gabar siiyo waa ku manna sheegtaa gabar baa ku siiyey manfaca iyo wanaagay leedahay gabar waa garan kartaa naxariisteeda waa garan kartaa dulqaadkeeda waa garan kartaa walaalayaal aan nasro garab istaagno aan nasro u qareenno aan nasro wax allaali wixii karaan keennaa aan la garab istaagno oo walaasheen meesha ay fadhido maantay aan ka dulqaadno intaasaan si xurmo iyo walaaltinimaa idinkaga codsanayaa walaashayna waxaan leeyahay ilaahay waxaan kaaga rajaynaa badan khayr qaba waa kula joognaa waddanka waa ku soo xiriirinaynaa ciddii kaloo akhbaartaadana soo weydiisan si toosa baan kugu soo xiriirin doonaa haddii aan la yidhahdo waa kaa warhayninaa ilaahay waxaan ka rajaynaa inuu qabriga kuu qaboojiyo amaayo ilaahay qabriga inuu kuu dejiyo ilaahay waxaan ka rajaynaa inuu bedel khayr qaba kusiiyo waa yar tahay niyaduyay kaa dhiman waad helaysaa intii in ka badan insha allah ilaah subxaana watacaala ku weydiinaynaa niyad bay naga tahay waa ka xumaanay waa dareemaynaa wayna dhibaysaa maaha inaan ku farxsannahay xanuunkaaga walaal gacabo ilaahay kuu booga dhayaan ku leeyahay dulqaada inta ka horraysa xaashaa lilah wax walba waynoo hagaagayaan allah ku barakeeyo walaalayaal waxaan mar labaad iyo mar saddexaad idinka codsanayaa inaad sida ugu dhaqsaha badan baa ugu soo jawaabtaan waxaan si gooniya ula hadlayaa dadka wax haysta oo ama ganacsatada ama siyaasadda ku jira ama dadka kale oo waxa weeyaan political figureska ah qof walba oo heli kara hanti
wax dheer isaga inuu walaasheedan hawsha iyadaa kala qayb qaataan rajaynayna usoo mariya xawaaladaha uguna soo dira telefoonkan 2529 ebe 78148 25290 الله يدين شرفه وحبيب فرح وحان مهانتي نصيب ويا شكرا صوبه ولا شيء نصر حسن إبراهيم sidoo kale waxa ila la jooga oo hadda guriga qolkiina wala sugan saygeedii walaalkay Umar marka xaasha lillahi baan leeyahay hawsha iyada halkaasay inuu ahaanaysa ilaahay idin barakeeyo waxaan idin rajaynaynaa gurmad degdeg oo horey loo arag Soomaalida dhexdeeda inuu ka sameeyo salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh